قلن جبينيسا فرشد علمي تكنولوجيا Department of Computer Science وعرفنا علم عنك سيدي عرفة الإسلام دينا شرفتي إسلام munaasabaddan ay ku qalin jabinayeen in ka badan 700 oo arday oo dhamaystay shahaadooyinka heerka koowaad ee degree programka iyo shahaadada heerka labaad ee master programka ee jaamacadda New Generation ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana ardaydan maanta munaasabadda loo qabtay qalin jabinaysay ka kala socdeen xarumaha jaamacadda New Generation ee magaalooyinka Hargeysa Burco iyo Gabiley waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay maamulka sare ee jaamacadda New Generation macallimiin waalidiin siyaasiyiin aqoon-yahan culimaa u diin ardayda maanta iyagu qalin jabinayay waxaana ugu horeyn halkaasi hadal ka jeediyay gudoomiyaha guud ee jaamacadaha New Generation ee Somaliland Cabdiwaasac Maxamed Yuusuf sanadka 2020ka xafladda waxa ka qalin jabinaya guud ahaan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda New Generation University 717 arday oo ka kala yimiday gobolada Gabiley campus, Burco campus iyo Hargeysa campus dhammaan waxbarashada heerka koowaad iyo waxbarashada heerka labaad ayay ka kooban yihiin kuliyadaha ay dhameeyeen waxa kamid ah culuumta daraasaadka islaamiga Islamic Studies xisaabaadka iyo maaliyadda accounting and finance dhaqaalaha economics maamulaha shaqaale iyo hogaaminta human resource management and leadership caafimaadka bulshada public health officer shaybaadhka medical laboratory kalkaalinta caafimaadka clinical nursing siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah global studies and international relations علومته horumarinta bulshada development studies علومته adeegida bulshada social work iyo علومته computerka علومته nafaqeynta iyo علومته beeraha waxayaguna madashaasi hadal iskugu jira waano hawgal tusaaleyn iyo hambaliyo u diray ardaydaasi qalin jabinaysay maanta hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle agaasimaha guud ee wasaaradda tacliinta sare Professor Ahmed Cabdi Muuse Abiyan oo isaguna ku hadlayay magaca xisbiga mucaaradka UCID safiir ku-xigeenka safaaradda Itoobiya ee ku leedahay magaalada Hargeysa iyo Marwo Faadma Saciid Ibrahim waxaanay ardayda halkaasi ka qalin jabinayay maanta ee munaasabadaasi loo qabtay ay u jeediyeen hadallo dardaaranaa like to say congratulations on behalf of the Ethiopian Consul General in Hargeisa, I feel honored and privileged to be nominated as a guest of honor at the graduation ceremony of this excellent institution. doonaya inaan aad iyo aad horta marka hore aan u hambaliyeeyo dhalinyarada tog dheer ka soo baxday waxaan leeyahay hambaliyo iyo welcome to Hargeisa including maxahayd qolada ka timi Gabiley laakiin Gabiley in yarun bay soo socdeen qolada xoog u soo dheeraysay waxa weeyaan tog dheer laakiin labadiinaba waxaan leeyahay welcome ma sha Allah hambaliyo waxaan hambaliyo u dirayaa ardaydan maanta iyagoo iska leh xafladda quruxda badan iyo ciddii kala soo shaqaysay waalidiintood macallimiintoodii iyo maamulka jaamacadda New Generation aad baan ugu hambalyeynaya ardayda qalin jabisay dafcadaha kala duwan gobolada kala duwan ka yimi aad baan ugu hambalyeynaya waa maalin ay sugayeen oo ku taamayeen oo muddo dheer ay sugayeen inay maalinta gaadhaan oo maanta noqotay oo sidaas la mid ah waalidiinta iyo macallimiintuna ay la sugayeen maalintay u dhammayn doonaan marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan idinka baryayaa inuu cilmiga aad barateen idin anfaco idin anfaco waalidka iyo qoyskii iyo saaxiib cidii ku gacan qabatay anfaco dalkana anfaco guud ahaan hambaliyo ardaydan maanta ka qalin jabinaysa ilaahay waxaan idinka baryaynaa idinka iyo waalidiintiinba inaad guulaysataan adduunyo iyo aakhiro waxaan si gaar ah u hambaliyeynayaa gabadhii halkan wanka u gashay ama u horeysay ee halkan aanu ka siinay shahaado sharafta waxaan mar labaadna salaamayaa maamulka sare ee jaamacaddan ee uu hogaaminayo Professor Allamagan Cabdiwaasac Allamagan aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum ayay tahay inaan idinkala soo qayb galo xafladda qalin jabinta jaamacadda New Generation oo
runtii jaamacadaha Soomaaliland ku yaalla kuwa ugu firfircoon jaamacaddani haddii ay inooga timid dalkaynu dariska nahay Itoobiya waxa ilaahay mahadiya halkaynu madaafiic iska weydaarsanayna hadday jaamacado iyo diyaarado iyo aqoon iyo ganacsi aynu isdhaafsanaynaa waa korriin maskaxeed iyo mid siyaasadeed oo ina dhex maray oo geeska Afrika ka dhacay geesteeda waxa iyaduna dareenkeeda cabirtay ardaydii ugu sarreysay jaamacadaha New Generation ee magaalooyinka Hargeysa iyo Burco iyo Gabiley iyadoo ka socotayna xarunta jaamacadda Gabiley waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardaydii ugu sareeyay aanan ahaa ardaydii ugu sareysay 717 arday oo maanta ka qalin jebinay jaamacadda New Generation runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad ugu mahad celinayaa ugu horreyn waalidkayga igu soo tabcay ee soo kaalin geliyay inta aan jaamacadda soo dhiganay soo garab taagnaa waxa kale oo aad iyo aad ugu mahad celinayaa jaamacadda New Generation oo ahayd jaamacaddii markii aan ka soo baxay dugsiga sare isiisay scholarship aan ku dhigto jaamacadda isla markaan anigoo scholarship ku dhiganaya maantana aan ka mid noqday ardayda ugu sareysa isla markaan waxaan aad ugu faraxsanahay inay maanta ay siiyeen haddana master kale oo aan waxbarashadeedu ku sii kordhisan karo oo dalka Itoobiya